أكبر الله أكبر الله أكبر marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta meel walo inooga timiday iyo gudoomiyaha degmada maxaan ku dhahay xusbiga aynu maanta u taaganahay ee degmada ku matala Cabdirashiid Maxamed Cabdillah aynu ku jirnay 7 sano oo colaada waxaynu ku jirnaa 7 sano oo waxa weeye sixir barara waxaynu ku jirnaa 7 sano oo kala guriga qabyaalada waxaynu leenahay qabyaaladu ha dhacdo degmadana hore uga mari leh qabyaaladu ha dhacdo dana gaara leh dad leba inagu duulayay qabyaaladu ha dhacdo waxaad arkaysaan iskiisarkayga maanta waxa ku daabacan doorkii horaan siganay oo sahan la'aan guurnay maantana ku socon mayno waynu ognahay afeefta Somaliland waxaan leenahay Somaliland hambaliyo Somaliland guul sanadka waa isbedel dabayl baa socota waxaad ogtihiin raggii 7 sano shaqaynayay ee 7 sano mushaarka qaadanayay baa waxay ku biireen dadka iyagii 7 sano taagnaageed cidla waxaad arkaysaan isbedelku maanta halkuu taagan yahay reer Arabsiyoodo waxaan doonayaa reer Arabsiyoodo magaaladeena Arabsiyo mar walba waxa la yiraahdaa waa magaaladii dalxiiska magaalada dalxiiseed waa magaalada ugu daranyada badan leh waa magaalada ugu caafimaadka daran leh maanta waxaynu joognaa waqti qabooba kanaaca jirta waxaad ogtiin reer Arabsiyoodo xumadu halka inoo marayso dadkii wasaaradaha caafimaadka inoo joogay way nagabeen waxaan anigu ka warqabaa oo meelo badan ka wargeliyay iskuulka dhexe Saad Sheekh oo anigu ka hawlgalo caruurtu waxay cabtaa biyo daxalle oo teetana waxaan u wargeliyay wasaaradda waxbarashada maxaan ku dhahay biyaha waxaan u sheegay gudoomiyaha degmada 420 arday baa biyo daxalle inooga dhimanaya reer Arabsiyoodo waxaad ogtihiin magaaladeena maanta dhir la'aanta ka jirta marka wadada la marayo waxa la moodaa tuulo waxay naga qurux badan taysa iyo meelo badan oo kala maanta naga qurux badan waxaan doonayaa gacmaha inaan isqabsano oo inu codkeena ugu hiirino isbedel doonka xisbiga wadani waxaan doonayaa magaalada Arabsiyood oo 7 sanadood ee horeynu soo marnay iyo 7 ka horeeyay intuba aynu wada ognahay 7 sano ama 5 sano quruxaan doonayaa 5 sano oo caafimaadaan doonayaa 5 sano oo Arabsiyo waxaan doonayaa marka wadada la marayo islaanta gaadhiga noohada saaran ee dawaqda geed liindhanaan ay ka goosato wadada waxaan doonayaa degmadeena oo qurux badan waxa mar walba la idinku xoqayaa kaarka qabyaalada kaarkii qabyaalada 7 sano inoo xoqnaa maantana waxaynu doonaynaa inaynu gallo hiilka walaaleeye ee walaalaheena laynoo kale maxaan ku dhahdaayay laynaga dhex shaqeeyay ee go'an laynoo kale ridayo inaynu hiilinaan doonayaa Cabdiraxmaan waa tolkeen nin meel kale ka yimid maaha nin laas caanood inooga yimid maaha waa nin Muuse Biixi la dhashay weeyaan maangaabka wax kale loogu sheekaynaya reer Arabsiyoodo waxaan idinku dardaarayaa codkeena inaad igu waraysan doontaan haddii sanaaduuqda Arabsiyood laga helo codka isbedel doonka hiil walaal iyo Cabdiraxmaan wadani haddii laynaga helo wallaahi wax badan baa iskeen bedeli doona reer Arabsiyoodo waxaad ogtihiin halkaan inoo taaganahay waxaad ogtihiin damqashada aan magaalada u qabo waxaad ogtihiin inaanan qolo ku salaysnayn waxaad ogtihiin inaan qabyaalada aanu iska aaso dadka reer Arabsiyood waa yimid ma kala jecli reer Arabsiyoodo waxaan doonayaa inaynu la jaan qaadno dee maanta caasimadaha Somaliland waxaynu nahay magaaladii wax soo saarka waxaynu nahay magaalo biyale waxaynu nahay magaalo beerale haddana maanta waxay naga qurux badan tuulooyinka taysay maanta waxay naga qurux badan allay baday oo qudradeedu maanta taalade waxaana waxay noogu wacan dib u socodka iyo qabyaalada iyo reer hebel iyo kaligaan wax cuno Arabsiyo kaligaan wax cunay maraysa la cuni maayo dhalinyarta bila camalka isbedelkaasi wuxuu horseedi doonaa barwaaqo badhaadhe iyo waxa weeye qallinkooda ku ciil baxaan ayaydu ku waxa weeye aan idinku hiilin doonaa runta lama jecla reer Arabsiyoodo laakiin run baynu isku sheegi doonaa waxa weeye been iyo way soo dhamaatay propaganda maanta waxaynu isku sheegi doonaa run waxaynu ku ana qaadi doonaa degmadeena waxaynu noqon doonaa dadka la isku soo tilmaamsado waxay magaaladu noqon doontaa magaalada dalxiiseedka laynagu magacaabay aynaan ahayn soo sidaa maaha yaan qabyaalad ilaa xalay waxaanu ognahay dad badan oo xalay nala shaqaynayay in xalayto waxa weeye guryahooda loogu tagay oo shilimo yar la siistay oo hankooda halka hoos loogu dhigayo waxaan idin sheegayaa reer Arabsiyoodo waad arkaysaan xalay isbedelka Somaliland halkuu marayo maxaa degmadan duleynaya degmadu ha ka baxda qabyaalada iyo kaarka reer hebelka iyo kaarka ina hebel ha laga baxo reer Arabsiyoodo heeriyada iska roga
reer arabsiyada heeryada iska roga hadalka sii badin maayo waa laydaba taagan yahay runtii waynu isku dambaynaa xafiiska inoo furan waynu isku waraysan doonaa waxaa inoo ballanaa xafiisyada degmada arabsiyood koona walba hagaga yaalle inaad xogta u doonataan oo waxa weeye reer arabsiyodow waxaa jira baa daboolka ka qaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu